dhammaan asxaabta xiran channel Cusub Graphics kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa muxuu ahaayay cashir ku saabsan web banner sida loo sameeyo. Marka waxaan ku codsanayaa fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, la wadaag asxaabtaada. Halkan waxaan qoranaynaa web banner. Web banner marka waxaan ka dhiganaynaa size-ka 5440 pixel oo width ah iyo 2550 oo height ah. Resolution-kiina waa 220. marka waxaan leeyahay create markaan idhaahdo kaan doonayay inaan sameeyo waa kan anaa sameeyay. marka kaan doonayay inaan sameeyo waa halkan baan u kacaynaa. marka horeysa waxaan sameynaynaa layout-ka. marka kuwaasaan ku horeynaynaa. halkan baan tegaynaa, waxaad soo qaadanaysaa pentoolkaaga, kadib halkaasaad click ku leedahay. click markaa saa ugu tiraahdo kadib shift baa qabanaysaa, halkaa kala imaanaysaa, click baa ku leedahay. kadib haddana shift baa qabanaysaa, halkaasaa click ku leedahay, halkaasaa haddana click ku leedahay, waa isku xidhaysaa. sidaa markaa iskugu xidho ayaa waxaad sameynaysaa move toolkaa tegaysaa, layerkaa tegaysaa, kan baa kalarka ka bedelay. markaa kalarka anigu waxaan ka dhiganayaa kaas, kalarka saasaan ka dhiganayaa. okay baa le kadib waxaan sameynayaa isagan control ayaan intiga markaasaan control iyo j oranaya copy hoosaan tigiya. kadib waxaan leeyahay control iyo t, kadib waxaan qabanayaa shift iyo alt, kadib ama shift iyo kaliya qabanaysaa. saasaad yar weynaysa. markaa saa yar weynayso check baa leedahay, ka hoosaad kalarka ka bedelaysa. marka anigu waxaan ka dhiganayaa cadaan. okay baa leeyahay. haddana ka hoosaan control j oranayaa, kaasaan tegayaa, control t baan leeyahay, haddana waxaan qabanayaa 50. saasaan yar weynayay. markaa saa yar weyneeyo ayaan check oranayaa, kan baan dul tegayaa bluega, kadib waxaan tegayaa effects, kadib waxaan tegayaa drop shadow. markaan tago ayaa waxaan sameynayaa shadow yar baan sameynayaa. waxaad ka dhiganaysaa size-ka 9, spread-kana waxaad ka dhiganaysaa maximum distance-kana 0, opacity-gana 9 baad ka dhiganaysaa. kadib okay baad iska leedahay. okay markaad iska tidhaahdo waxaad tegaysaa isagaad dul tegaysaa, right click baad leedahay, kadib waxaad sameynaysaa copy layer style. kadib ka hooseeya imanaysaa, right click baad leedahay, copy best layer style baad leedahay. haddana ka hooseeya imanaysaa, right click baad leedahay, best layer style baad leedahay. oo kuwaa imika saddexaysaa inoogu sameysa. marka saddexdaas u sameyso ayaad waxaad sameynaysaa iyaga ayaad saa isugu kala figareynaysaa. control J baad leedahay, waad soo qaadaysaa, waxaad sameynaysaa control T baad leedahay, right click baad leedahay, kadib waxaad odhanaysaa horizontally, haddana right click waxaad odhanaysaa flip vertical. saa markii usoo jeesto ayaa waxaad sameynaysaa shift baa qabanaysaa, waa yaraynaysaa. saa markaa u yarayso ayaa waxaad sameynaysaa check baa leedahay, waa iska sii daynaysaa. imika waxay noo cadhay shape-kii kale, shape-kaa uu ku dhex jiro fadhiga ama furniture-ka uu ku dhex jiro. waxaan tegayaa web banner-kayga baan ku noqonayaa, waxaan soo qaadanayaa shape-ka polygonal tool-ka, waxaan ka dhiganayaa left side, shift baan qabanayaa, saasaan u weyneynaya. markaan saa weyneeyo ayaan sii deynayaa. kadib waxaan tegayaa move tool-kaygii, isagaan ku noqonayaa, waxaan siinayaa color-kaas, kadib okay baan leeyahay, hoos loo soo dhigayaa. waxaan leeyahay kadib control iyo j baan leeyahay, labada layer ee polygonal-ka ka hoosaan tegayaa, kadib control t baan leeyahay, shift iyo altaan qabanayaa, kadib saasaan weyneeyo. markaan saa weyneeyo check baan leeyahay, kadib double click baan leeyahay, waxaan ka dhiganayaa orange-kaas. marka orange-kaan ka dhigta waxaan sameynayaa kan kale dul tegayaa ee sare, control t baan leeyahay, shift iyo altaan qabanayaa, oo yaro weyneeyo, kadib check baan leeyahay, kan waxaan ka dhigayaa markaa click baan leeyahay, caddaan baan ka dhigay. haddaan markaan ka dhigo waxaan sameynayaa saasaan isugu select gareynayaa control z si ayna ku hayn leeylada markaa select gareynaysa kaaga raaca. saddexdooda saa isugu select garee lock dheh, saddexdan kalena saa isugu select garee oo lock dheh. intaa markaad ka lock gareyso kan labadan isku select gareyso control t ama haddaad doonto saa usoo gurki. saa markaa usoo gurto waxaad sameyn kartaa inaad shift qabato oo saa yar weyneyso, kadib aad check tidhaahdo. hadda waxaan isticmaalayaa resource-kii baan yahay sawiradii. markaa sawirada adigu waxaad kala soo degi kartaa Google-ka. anigu laakiin waxaan isticmaalayaa design-kayga horaan sawirada kala soo baxay. waxaa ii harsan markaa sawirkaa background-ka haddii qofku arkaya xaggaa hoose ku jira, hoos baan u soconayaa, oo kaas waan soo qaadanayaa,
waxaan imanayaa projectkayga cusbaa aan dul dhigaya. kadib markaan saa u dul dhigo ayaa waxaan samaynayaa oo la ekeysiinayaa projectka. saa markaan u la ekeysiin waxaan samaynayaa soo jiidayaa, waxaan ka saraysiinayaa backgroundka oo keliya. kadib waxaan taabanayaa backgroundka dul tegaya, halkaasaan tegayaa, click baa leeyahay. kadib waxaan ku dhufanayaa solid color, markaasaan waxaan ka dhigaynayaa caddaan. okay baa leeyahay, waxaan ka dul marinayaa sawirkaan soo gashaday. kadib waxaan samaynayaa opacity-ga yara yareeyo. opacity-ga markaan saa u yara yareeyo intaasaan ku daynayaa 80. waxaan samaynayaa markaa sawirkii halkan ku jiray baan soo qaadanaya, xaggan baan ku noqonayaa, sawirkan baan soo qaadanaya, halkan baan keenayaa. marka halkan keeno waxaan samaynayaa polygonalka sare, right click baa leeyahay, create clear mask baa leeyahay. intaa markaan saa halkaa u geliyo waxaa ii hadhay qoraal. marka iyaga qoraalka ma soo qaadanaya, gacanta ku qoraya. marka halkaasaad tegaysaa, click baad leedahay. kadib halkan markaa click ku jira waxaad samaynaysaa, halkaa waxaad ku qoraysaa amazing, waxaad qoraysaa amazing modern. kadib check baa leedahay, saasaa u dhigaysaa, control J baa leedahay, hoos u dhigaysaa. halkaasaad waxaad ku qoranaysaa furniture. furniture baa halkaan ku qoraysaa. markaad ku qorto waxaad samaynaysaa check baa leedahay, double click baad leedahay, halkan baa waxaad ku qoraysaa fartii, fartaad doontaa ka dhiganaysaa. anigu fartaa isticmaalaya, goobtan baan ku qoranayaa, check baa leedahay. kadib check markaa idhaahdo control T baa leedahay, saasaa u yar weydiinaya. saa markaan u yar weydiiyo waxaan samaynayaa check baa leedahay, tan kalaan soo qaadaya, control T baa leedahay, saasaan iyadana u yar weydiinaya. kadib waxaan samaynayaa, haddaan doono kalarkaan ka bedelayaa, waxaan samaynayaa kalarkan baan ka dhigaya orange. kadib okay baa leeyahay, check baa leeyahay. kadib waxaan samaynayaa haddaba qoraal yar description yar baan hoos dhigaya, intaa yar baan saa hoos dhigaya. markaan saa hoos dhigo ayaa waxaan samaynayaa qoraalkii markuu loo ramo meesha ay kusoo saaro, halkan baan tegayaa, waxaa isku dhow line spacing-ka aad isku dhow, saasaan ayaan u waaweynayaa. kadib fartaan yaryareeyo, markaan farta saa u yaryareeyo waxaan samaynayaa line spacing-ka isku soo celinaya, isku soo dhaweynayaa. markaan saa isku soo dhaweeyo paragraph-ka tegaya, saasaan odhanaya. markaasaan waxaan samaynayaa inaan muxuu ahaayey afartana weliba sii yara yareeyo, in yar sii yara yareeyo. markaan saa usii yareeyo line spacing-kana saa isku dhaweeyo. kadib check baa leeyahay, saasaan ku dayay. markaan saa ku dayo waxaan samaynayaa xaggaa hoose waxaan dhiganayaa bottom yar, halkan baan tegayaa, round rectangular baan ku dhufanayaa, shift baan qabanayaa, saasaan yar yareynayaa, shift qaban. kadib waxaad tegaysaa properties, waxaad samaynaysaa gooba baa ka dhigaysaa, dhinacyada soo raambarinaysaa. kalarka waxaa ka dhiganaysaa orange ama kalarkii aad dib doonayso, anigu orange baa ka dhiganaya. kadib waxaad samaynaysaa qoraalkaas sare kaa project soo leedahay, double click baa leedahay. kadib waxaad samaynaysaa, waxaad ku qoraysaa halkaas read more, halkaasaad dhigaysaa. kadib waxaad samaynaysaa, waxaan iska raacsanayna kan social media ama isticmaalna contactskaas la raacsanaya, laakiin waxaa naga dhiman roundedkaas muxuu ahaayey polygonalka xaggaa yaalla ee daadka oo ku qurxin weeyaan. marka waxaad samaynaysaa right click baa leedahay, polygonal baa imanaysaa, saasaa u weydiinaysaa. saa markaa u weydiiso waxaad samaynaysaa kalarkaa dhexda ka saartaa, waxaad tegaysaa effects, stroke baad tegaysaa, waxaad siinaysaa muxuu ahaayey, waxaad siinaysaa waxaad ka dhigaysaa stroke-giisa 16 baa ka dhigaysaa, 16. okay baa leedahay. markaa saas kugu soo baxaya, control iyo saasaa horta marka hore hoos loo soo dhigaysaa. kadib waxaad samaynaysaa leerada ka wada hoosisiinaysa sawirka iyo background-ka cad mooye inta kala dhawad ka hoosisiinta. kadib waxaa leedahay saasaa hoos ugu soo dhigaysaa, control iyo J baa leedahay. kadib saasaa usoo qaadaysaa, halkan baad soo dhiganaysaa xabad, haddana control iyo J baa leedahay. markaad control iyo J tiraahdo ayaa waxaad samaynaysaa xabadda kalena, halkan baad soo dhiganaysaa, halkan baad soo dhiganaysaa, control iyo T baa leedahay, shift baa la qabanaysaa oo yareyn. kadib check baa leedahay, markaa xaggan baad hoos soo dhigay. waxay noo hadhay keliya waxa weeyaan contactska. markaa contactska waxaan samaynayaa, waan soo qaadanaya contactska, labada shay iyo waxaan soo qaadanaya contactska. markaad doonayso in la isku select garayso waxa la sameeyaa control baa la hayaa, adoo control la xijinaya ayaa saa u select garaysan. haddaad doonayso in isku wada select garaysan waxaa la isla qabtaa shift, xaggan markaad keensanaysaa, xaggan markaad keensato waxaad samaynaysaa
halkan baad soo dhigan marka adigu waad qoraysaa anigu waqtigaa inagu dheeraanay videoguna aad u dheeraada diidaya intaas saasaad usoo dhiganaysaa contactiski iminka saas u designku inoogu leeyahay aad iyo aad baa umahadsantihiin fadlan waxaa kaa cabsin haddaad channelka cusubtahay subscribe la wadaag asxaabtaada wixii su-aalada aysan waxaad igu soo weydiin doontaa telegramka xagga hoose ku jira wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu